xariifkan darawalka hal mar ay wuxuu ku shuminaya silma filana mudaniisa xaaskiisa balse waxa uu sameeyay ayadu la yaabisa kadibna waxa soo galay meesha mudanaha xariifka waa uu joojinaya shumiska gabadha ayaduna ay iska yaabanta kaasay ku dhahay adiga sidee tahay ayaduna wuxuu sheegay inay fiican tahay kaasay markii wuxuu ku dhahay aniga soo fiir markay fiirsan wuxuu ku dhahay aniga kama helin bishimaha waxa ku dhaceen sidoo kale wuxuu sheegay bishimeedina ay ekin gabdhaha wadooyinka tagtaagan oo kale xariifkii darawalkan waxa uu dhageysna wala yaabin yahay kadibna gabadhu is dejinaysa markaas waxay ku leedahay caawa maadna maqaayada wuxuu ku leeyahay aniga maqaayada ma aadi karno ee kaliya la iska baax wuxuu sheegay ganacsi inuu aadi rabo safar markaas ay ayadan waxay ku leedahay waxaan ilaabayna aadi rabtid safar balse wuxuu dardaarmaya darawalkii wuxuu ku leeyahay caawa inaad wada qoftaani darawalkii wuxuu ku leeyahay waan wadaya sidoo kale darawalku wuxuu sheegay gabadhiisa inuu ilaaliyo ninkaani yani xaaskiisa kadib markay yimaadaan meeshii rabin waxay ku leedahay adiga aad qurux badan maanta markaas wuxuu ku dhahay aniga baa ogaana qurux badan waxa kale oo dheesam ku raaci kara safarka markaas soo fiirinay wuxuu ku dhahay dhabmiyay ka tahay aydan wuxuu jawaabaysaa ha waxaan rabaa inaan ku raaco markaas wuxuu ku dhahay kan waa ganacsi ayga mashquulin dibna aydan wuxuu ku dhahay haywaaya iga raali noqo wuxuu ugu jawaabaya haye markaas wuxuu ku dhahay waxaan gadahay falaadkeyga waa inaan dhaqso ku baxa gabadhin aad isku murjinaysa kadibna ay kasoo tagaysa xariifka waxaan soo aadaysa banaanka markii banaanka soo baxan waxa arkay darawalkii wuxuu ku dhahay subax wanaagsan aydan wuxuu jawaabaysa subax la darawalka markii gabadhu wuxuu ku leeyahay waxaan rajaynayaa wax weyn wanaagsan aydan wuxuu jawaabaysa intaas muhiim ah waa caadi markii darawalka wuxuu jawaabay midaas aniga ay muhiim ii tahay balse gabadhi waxay bilaabaysaa darawalka inay ka fogaato sidoo kale ay dhibsato wax uu sameeyo kaas isku day inuu soo dhawaado kadibna uu shumiyo way iska kala tuuraysa waxaan ku dhaysay adiga maxaa ka qaldan wuxuu ku dhahay waxun ma sameeyna kaliya waxa rabo in adiga ka farxiyo wuxuu ku dhaysay aniga ma ka cusubnaad inaad ii sameeyso markaas wuxuu ku dhahay gabdhaha adiga oo kale waxa lagu talgalay mar walba inay iska dhol cadeeyaan sidoo kale wuxuu ku dhahay waxaan dareemaa ninkaaga inaadan ku yeesan farxad markaas wuxuu ku dhaysay ayada aniga uma baahan adiga xiriirkaaga sidoo kale wuxuu dhahay aamin aniga waxaan ahay kaliya darawalkaaga sidoo kale wuxuu ku dhahay waxaan ogaa wax waliba uu sameeyo ninkaaga markaas ay gabadhi fiirinaysaa waxaan ku dhaysay maxaad sheegaysaa dib ay ku dhahay ayna keenay soo bax gabadhi darawalka waxay fiirinaysaa qaab kale sababtoo waxa la yaabanta uu sameeyo markaas uu furaya gaari gadaashiisa wuxuu ku dhahay kaal meeshaan soo gal gabadha waxay soo baxaysaa waxaan u imaanaysaa darawalka markaas waxay ku dhaysaa tani waa wax lagu qoslo sidoo kale gabadhi hal mar ay waxay galaysaa gaariga gadaashiisa kadibna darawalkii gabadhi ay gaariga ku soo xiraya markuu gaariga ku soo xiray kadib hal mar waxa soo baxay gabadha ninkeeda darawalka ninku wuxuu ka codsanaya inuu ka qaado alaabta ninka wuxuu ku dhahay waa maasanta alaabtii soo qaad kadibna darawalkii uu soo qaaday alaabta wuxuu soo gelinaa gaariga gadaashiisa markale darawalku wuxuu ku dhahay ma dhaqaaqna oo ma aadna airportka ninku wuxuu ugu jawaabayaa laakiin marka hore inaad meel la marsiisay ku dhahay darawalkii wuxuu ku leeyahay waa in marsiinayna keen saddexdoodiba way isoo wada raacaan waliba iyadoo la ogin gabadha inay saaran tahay gaariga darawalkii ninku wuxuu keenay meesha uu rabay ninka gaariga ka soo deganay waliba qoftan isagoo ku dhahay aad aan kuugu xiisay wuxuu bilaabay inuu laabta geliyo sidoo kale aan uu shumiyo wuxuu ku dhahay inaan kula kulmo mar ay ugu dambeysay sila ma filaan darawalkii amar wuxuu gabadha ka furaya gaariga amar soo qeelaysa waxaan ku dhahay halkaan maxaa ka socda sidoo kale waxa ku dhahay kani waa safarka ganacsiga Soomaaliya markaas ay ku dhahay adiga maxaad inta ka sameynaysaa gabadhina ma seeray ahay weyn xanaaqsinta sidoo kale ismurjinaysa oo ilmeenaysa waxaan ku dhahay waxaan u istay problemkan aniga hay balse problemku wuxuu ku socday adiga dhankaaga sidoo kale waxa ku dhahay aniga midaas ma aan dareensaneen waxaynu mahad celinaysaa darawalkii waxaan ku leeyahay adiga indhaha furay aad ayaad mahadsan tahay ninka xanaaqa wuxuu darawal ku dhahay waa adiga Soomaaliya qofkii dib maray aniga wuxuu ku dhahay adiga waa inaan ku raaco aan ku dilaa balse gabadhi ay celinaysa waxaan ku dhahay markii hore aniga waa inaan tigaraado aad dishaa sidoo kale waxa ku dhahay aniga waxaan rabaa had kadib inaan kala tagno aad furto sidoo kale waxa raacanaysa darawalkii Chrisna waxaan rabaa aniga asiga inaan is guursano waxayna meeshaas ugu tuuraysaa farantigiisa markaas ay gabadhu waxay ku dhaysaa bax iskaga tag halkaan oo aad ganacsigaaga waliba ganacsigaasi oo aad wadooyinka ay luuqada ku qabsan jirtay markaas ayuu ku dhahay adiga maxaa adiga qaldan kani waa aniga gaariga labadiin banaad ka tagtaan balse darawalka waxaas dhig buu midhiga oo soo tagaa gabadha ayuu maana wuxuu ku dhahay xageen ku geeyaa marwo gabadhi ayaana hal mar waxay ugu jawaabaysaa waxaan rabaa inaad geyso maqaaxida sidoo kale waxay ku dhaysaa aniga adiga kaliya waxaan rabaa halkaasi inaan ku wada hadalno darawalka wuxuu ugu jawaabayaa ma hubtaa marwo in gabadhi ay soo jeesanaysaa waxaan ku dhaysaa mid ma ka codsan kara markaas ay ku dhaysaa please ay ugu wicin marwo wuxuu ku dhahayaa waayahay kadibna waxay soo raacayaan gaariga labadooduba sidaas ay ku baxayaan